السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaad nagala socotaan waa Hodan Badbaado channel. fadlan subscribe, share, like iyo comment oo xaqiina. barnaamijku waa fanka iyo su'aalaha furan. waxaa uu martiigu ah alfanaan Saddam Sky. soo dhawow Saddam. waad mahadsan tahay Cawil Cabgod waana ku dhawahay Hodan Badbaado channel. aad ayaad u mahadsan tahay. barnaamijkeenu waa fanka iyo su'aalaha furan. Saddam waa gartay su'aaluhu waa bilaa xuduud. waa gartay waxaan had iyo jeer ku soo martigelinaa fanaaniinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, dhalinyarada fanka jecel iyo cid kasta oo fanka xiisayda. sax iyadoo su'aalaheenu aysan fanka kaliya ku ekeen yihiin su'aal bilaa xuduud. waa gartay Saddam Sky waxaa tahay fanaan Muqdisho ku nool, ka mid ah fanaaniinta kooxda deegaan. aad iyo aad sidaa marka hore inaad bulshada magacaaga u sheegto ayaan kaa codsanayaa. wuu mahadsan yahay abwaan wariye intaba Cawil Cabgod markii koowaad ee igu horeysay maahan Hodan Badbaado channel, waa markii labaad. horta asxaabta waxaan ka codsanayaa anigoo Saddam Sky ah inay like, share, comment, subscribe intaba ay noo sameeyaan. aad baan u mahadsantihiin. magacayga saddexan waa Saddam Maxamed Cali, sidoo uu sheegay Cawil Cabgod uu lahaa dadka super Cawil. Saddam markaan intaa ka soo tagnay ka bacdi su'aalaheena u gudagalno, waxaan rabaa Cawil inaan ku weydiiyo su'aalo dhowr ah oo mid walba ay xamaasadeeda leedahay. sax su'aasheedii ugu horeysa waxay tahay goormaad fanka ku soo biirtay? Cawil waa mahadsan tahay saaxiib macaan. horta fanka waxaan ku soo biiray 2015 gart waxaanan ku soo maalintii igu horeysay fanaan noqdana waxay ii ahayd maraan mashrax soo istaagaan ka heesaa maraan tartan ku jiray bay ahayd. oo ba tijaabadaadii faneedba waxaad ku soo gashay waa masraxiyad lagu tartamay. heesaha gal waa xagee meeshaas? Hargeysa, Somaliland. ما شاء الله. Saddam goormaad istiri fanaan ayaa tahay? waa had leedahay hibada, maxaase kugu dhaliyay in aad noqoto fanaan? waxaa igu dhaliyay Cawilo dhalinyarada asxaabtayda marka aan la joogo inta badan ama iskuulhan joogo ama garoonaan joogay, waa xawayaan mar dhalinyarada aan ku martay group ah aan uga wada joogna ayaan ugu heesi jiray masiiran jirnay. aad baad cod macaantii maad fanaan noqotay. halkaas aad dhiirigelinta ka heshay. aad ayaad u mahadsan tahay. Saddam heestii ugu horeysay ee aad adigu leedahay ee aad qaado? Cawilo waad mahadsan tahay. xusuus hore aad igelisayo. heeskayga igu horeysay waxay ahayd hees la yiraahdo Bushra waa gabar magaceed. magac gabdheed ma sha Allah ayay ahayd. wakaasa Saddam fanka waxa kugu xambaaray jacayl adiga kula soo dirsay dhanka hablaha ah, ma la dhihi karaa? Cawilo jacaylka macna waxaan waa hubi moogta. sax jacaylku laba u qaybsamaa, mar aad gabadh jeceshahay iyo mar wixii hamigaaga iyo guushaada aad jeceshahay. waa sax. marka hamigayga iyo guushaydan buu ahaa fanku uu ka madax banaanaa jacayl adiga ku hayay. jacayl aniga hayo uu ka madax banaanaa. aad ayaad u mahadsan tahay. heesta Bushra ayaa sameeyay erayadeeda. Bushra erayadeeda waxa iyo laxanka baday sameeyay Qadar Aadan Cabdullaahi Raambo ayaa sameeyay erayada. Qadar halkaan ka salaamayna asigana salaamullaahi. aad buu salaamay. haddii aan kaa codsado sida ay u dhacaysay. aad baa mahadsan Cawilo. bustaan weyn jacaylku mar hadduu ku barbaaro qulub aan kala baydhin. alla yacsigaada mahadsan tahay. ku darsada oo Saddam waa mulaxam la xameeya heesaha. waa sax. wuxuu ku darsaday fanaanimadiisii mulaxannimo. Saddam markii aan intaa ka soo tagnay Cawil su'aalahaygii bilaa xuduudka ahaa adiga weli jacayl ma kula darsay? jacayla hawila dirshay Cawilo aad buu ila dirsay.
ma jacaylay ahaayeen mase waa un jacayl qura cawilo waxa weeye jacaylo hadda dhalinyaradii waayahan waxoodii jacayl way dhaafeen waa jacaylo bishiiba mid ay yimaadaha malaha ma aqaani wixii waa la bedelay moogta cawilo jacayl buu ahaa jacaylo mu ahayn adigu jacaylad ku egta anigu jacaylan ku nin wanaagsan baad ha jacaylkaasi bilowgiisii halkuu ku dambeeyey xaggee jacaylkaasi wuxuu ahaa midaanu dee ku doonayay inuu jacayl u ahaado muu ahayn laakiin in miro dhalkiisana marag wata inuu noqdo marka xaaskayga haddeer carruurtay dhashay ayaan jeclaa waadna ka guul gaartay iyo ilaah baa mahadda iskale waa sida shakhsiyadaydu aan aadka u jecelahay dadku inay noqdaan qofku markuu lamaanihiisa jeclaado inuu ka gungaaro ilaahayna calaf isugu daro deedna ay ubad wada dhalaan guri wada degaan gurigaana uuna burburin sidaa waa sida qalbigaygu jecel yahay dhammaan ummadda soomaaliyeedna aan wada rajaynayo dhalinyarada maantana aan leeyahay ku dadaala miro dhalka jacaylkiina oo jacaylku yuusan idinka noqon jacaylo waa sax aad ayaad u mahadsan tahay adiga mudan cawilo maxaa kale waxaan rabaa inaan ku weydiiyey fanaan heese keebaad ugu jecesha fanaaniinta hadda waa fanaano fanaan ma huwa fanaano kuwa hadda waa sax laakiin kuwa hore aan jeclahay waaba iyagaasoo waxaan kaa rabaa keebaad ugu sii jecesha waxaan ugu jeclahay Cumar Duule Cali oo taageera ha Cumar baan taageera maadaama jacaylkaagu uu ahaa jacayl boqortooy ha aad u weyn Cumarna uu ahaa macallinkii jacaylka sax asagan de ha waxa de asagan martay jafay aad u nugu xagga jacaylka aad u weyn aad ugu nugusha waxaan leenahay jacaylkaagu xawaaro xamira dhalo sax isku waara amiin khilaaf iyo isqabqabsina ha idinka fogaado waa sax sadam waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hees dhagtaadu maqasho keebaad ugu nacab tahay oo istiraahdaa alla xanuun badanaa erayadani looma dul qaadan kare ma ahan fanaanka qaadaya ma ahan laxanka ma ahan muusiga ma ahan heesku inuu xun yahay kulaylka erayada isan xamili karin laabtaadu heesta aan horta fanaan ma necbi heeskiisana waxa weeyaan inay aniga marka ay taabanayso oo baan oran karaa taabashada waxaan ka hadlayaa macnaha dhiileed alla erayadani waa damqayaan oo erayo aan naftu qaadan karin oo xanuun badan sida hadalladu u kala xanuun badan yihiin iyo heesuhuna u kala xanuun badan yihiin heestas waa hees jirto Cumar Duule qaado waa tii waxa uu odaada wehey waaqlaan u baxayo cilaan weeramaya wehey waa heeskaas waxay xanuun badan oo kula yahay adiga haaniyo erayadiis haaniyo meel ku damqay waaqlada meel cilla dawaan kala ka habawday oo tilmaamayaan kala habawgana wad nacabta ha nacaba ilaahay nama geliyo amiin sadam amiin cawdo eray dhagtaadu maqasho keebaad ugu jecesha waa kelmad qura ee dhagtaadu ay maqasho keebaad ugu jecesha waxaan ugu jeclahay eray marka la leeyahay qof dhahda Allahu Rahmaan Rahiim qoftii alle magaciisa afkiisa waa marka eray la sheegayo eray aad maqasho Allah ayaad ugu jecesha Allah baan ugu jecel sadam eray aad maqasho keebaad ugu nacabta eray aan maqlo waxaan ugu necbahay erayga habaarka inkaar Allah ku gurido Allah ku soo qabto sidan Allah ka dhigo aad baan necbaa inkaartii habaarka wala cabsi badan tahay cabsi badan kasbanadan dambana hadda inkaar iyo midna iyo dadku kala jecleen way qalbi dhagaxoobeen adigu sida marka wad dhinacaas wad ka nugushahay iskaga nugulahay waa ka nugul Soomaalidu qofku markuu qof yiraahdo balaaya kugu dhacdo balaayada madiga iskale adiga baa kugu dhacday ugu jawaabaan marka adigu waxaad aaminsan tahay hadii habaar yeero inuu kugu dhacayo sidaas aad marka u nacabtaa waxa de kulli arab bini aadan ka soo baxay way maaragtay way dhibadeen moogta sidan isticmaalka social media waa yahan aad ayuu ugu badan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa sax markii la yiraahdo isticmaalkiisuna dhalinyaradu waxyaabo badan isugu gudbiyaan xasaawooyin iyo kida fulaan iyo doondoonis iyo waxyaabo badan oo qiyaaliya iyo wax badan aad marka aan kiisa gaarka ah Facebook-ga aan u soo gudubno maxaad dhibsatay Facebook-ga ku aragtay ama adiga ka yaabiyay aniga wax badan baa iga horta waxaan dhibsaday adoo Facebook saaran ayaa waxaad arkaysaa qof ustaadkiisa soo dhigtay
jacaylka ma sheegi karo caashaqa ma yaqaano iyo qof soo dhigtay allahuma inii acuudu bika min oo de ma garanaysa si fiican marka waxaan karahsaday qof habaar qof heesna wada qur'aanna soo daba dhigay oo wixii oo dhan isku wada Isku wada wada. heestuna waa hubigiisii qur-aankana islaam ayuu u yahay laakiin in la kala uu labada meel u go'aa fiican waa tahay damacyada waalida ah ha ee luuqa la iska soo weerara ha ee shukaansiyada badan ah ha dhinacaas siday isku tihiin adigu ما لكن waxaan kala lahay kibrid iyo gaas awgilo in badan oo dhalinyarada kamid ah waxaad moodaa in ay dhinaca damacooda uu ku waalan yahay iyada ka waran xagga anshax niyo facebooka iyo waxyaabaha la soo dhigo sideebad u aragtaa adigu akhlaaqiyan ma aalad wanaagsan oo aad isleedahay waa horta si awlow adaa wata hadalka si weyn oo anfacda waa gartay sina wax xun baa loo adeegsadaa hadda lahaan war propaganda baa la iska soo abuuranayaa awlow sheekada iska soo qoranayaa waxa la leeyahay awlow dhinta hadda ila awlow nool yahay isagu qofkan habaaraya ee leh awlow dhintay ma ahan malagi nafti ka qaadayo ma habaar maahan cawl uu dhintay cawl ajal uu leeyahay laakiin been abuurkaas iyo waxmata sheelka waa sax ha waxaas xambaarsan waa tahay sida muuli adigu Soomaalidu dhalinyaradeedu waa shukaansi bilaa xuduud waa sax mararka qaar ma laga yaabaa inaad qaac ka siiso shukaansiga hawada oo aad eraya iska qorqorto hasaawa beenla sidee isku tihiin awlow mar baa waxa jirta ma taqaana yani horta marka qofku ku lamaan haysto ee uu qofkiisa ag jooga dee awlow waxa laga yaabaa inuusan meel kale eegin marka hadeer qof laga dheeriyahay oo marka de iska single oo aan qabin ama xaas haysan ama qof haynin magaranaysa ayaa iska badan laakiin anigu de hal qof baan hayaa halka qofna waa hayo adiga dabeecadaada markii laga soo tagay sida aad hadda ii sheegayso rag badan oo iyagoo xasaas leeyo hal iyo laba iyo ka sii badan la yaa hadana hawshii iska sii wata sida aan ku ognahay dhalinyarada Soomaalida صح ya صح waa hadal uun afka baarkiisa ah oo isaga siman oo shukaansiga uma yeelan xad inkastoo aan shukaansiga u aqaano arrin lagu dan gaaro صح ee uusan ahayn arrin laga dhigto amal waa arrin lagu dan gaaro laakiin arrin amal laga dhigto ma aha صح sida darteed marka dadka amalka ka dhigtay maxaad leedahay niyo dadka amalka ka dhigtay hortaan mid baan oran lahaa awlow aniga ahaan waxa qofka haduu luqluq bato ama uu meel shalma raac noqdo ma garanaysaa dooqa ka habaaba qofkaas isaga ah dooqa ka habaaba dooqa ka luma dooqa haduu lumana nolosha waa dhibaato salahan hadii awlow aniga laftiga intaan ku xeeyaan ku awlow kale dar baan ku soo iibinaa meel bishaara ku geeyo wax wada qurux badan yaalaan kimida qaadata waxa laga yaabaa inaad ku dhinda daraan dartoodeed meel aad ka gaadhaba hadii marka xaqii dumarka ama xaqii ragga sidaas isku noqonayaan adiga isku noqonaya qofka duu wareegadi waa tahay waa Saddam Sky fanaanka caawa martida igu ah barnaamijka waa fanka iyo su'aalaha furan channelku waa hodan badbaado channel subscribe-ta share-ta like-ta waa xaqiina mar kale Saddam soo dhawaaw waa dhawac awlow Saddam waxaad ku nooshaa magaalada Muqdisho صح in dhalinyarada wata waa صح maxaa kugu yaab badnaa ee aad ku aragtay mujtamacyada bulshada dhexdeeda wax iigu yaab badanaan arko ayaa la dacawlow waxay ahayd waxyaabo badan waxa ka koow ah markaan arko gaari cabdi bilaah oo lalaya 12 nin oo askar oo min qori wataana ay saaran yihiin taasi la yaab iyo naxdin bay igu ahayd waa gartay waxa kale oo igu naxdin badan markaan maalin walba xabad iyo arko hoobiyo dhacaya taasina naxdin iyo fariir bay igu ahayd fariir bay ku wahay markaan soo waa taasi waa dhinaca amaanka aamin waxaan leenahay ilaahow nabad noo naadi صح waxay ku xiran tahay nabadda xabadda dhicitaankeeda iyo cabdibilahan ku baysane rarane waa صح da nabadii ku xiran yahay nabadana ilaah baan ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay saraka sidii nabadda loo dhalin lahaa fadhiga waxba kuma yimaadaan waa صح nabad aan loo dhimanna lagama mira dhaliyo waa صح dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baratay iyo kuwooda kale ee aan wax baran iyo intuba noloshu waa halgan bay rabtaa halka aad ku noolaanaysana hagaajin bay rabtaa hagaajiya wadankiina oo nabadda u horseeda ayaan leenahay si looga baxo la yaabka uu noo sheegay alfanaan Saddam Sky insha Allah
oo waliba aniga isugu baan koow ka nahay aan nabadda u sara kacno إن شاء الله saddex maxaa kuugu farxad badnaa magaalada marka aad martood aragtay waxaa ugu farxad badan marka aan magaalada marayo ee aan arka dadkayga iyo maaragtay aan dee isdhisbaangaraynayn dhisbaaysin wax la yidhaha isku samaynayn cawile waxay tahay marka ugu horreysa waxaan jeclaan lahaa af soomaali ma yani dadkayga iyo aanan midba mid aanu nacayno mid walba maaragtay istaakulaynayo oo Dadkii wada dadka wada faraxsan, faraxsan de dadkii wada markaan faraxsan. arko alxamdulilah waa la farxaa aad u saddex weli qof haweeno intay kuu soo bareertay damac baa iga kaa galayo aad baan kuu jecelahay oo walaal waxaan rabaa inaad wax ila qabato kelmaddaas in kuu yeertay mayo weli ima yeedhin weli ima yeedhin maxaa sababay dumarku inta badan inaysan soo bandhigan rabitaankooda ragguna ay weerarka un hayaan waxaa sababay xishoodka dumarnimo waxaa laga yaaba qofka taas iyadoo ku rabta cawilow oo adiga rabitaanka adiga aad rabtaa iyada uu kaaga badan yahay yani xaggeeda uu dareen badan jiro inaysan kuu soo bandhigin marka waxaa weeye waa xishood rabbaani ilaahay siiyey taasi waa ceebaal in laga dhigay miyaan dhihi karnaa arrinkaa oo macnaha gabdhaha ay ku tahay ceeb inay tiraahdo nin war adigu waan ku jeclahay sida ninkuba ilaan waa yidhahdaa waan ku jeclahay gabadhii demay dareen bay leedahay qofka bini aadamkii dareenkeeda iyadoonan sheegan buu ninka ka hor sheegtaa marka ceebaal ma ahan inay gabadhu tiraahdo waan ku jeclahay sababtoo ah ilaahay baa ka keenay dee aad may fahanta cawil asbaabta yaraysay maxay kula tahay inay gabdhuhu ay soo bandhigtaan in ceeb looga dhigay naago inay tiraahdo nin waa ku rabaa macnaa waxaan waa cawro loogama baran inay tiraahdo waan ku jeclahay tii dee markaa tiraahdo waan ku jeclahay ilaahay ka keena maaragta saddex ayaa surprise laga dhigay hees aad maqasho keebaa kuugu farxad badan oo dhegta aad la raacdaayo had iyo jeer aad tiraahdo ku dhiirigeliyo farxad kuugu abuura markaan maqlaayo soomaaliyay tooso waa dhanka wadaniga waa dhanka wadaniga xagga jacaylka jacaylka waxaa ku yaab waxaan muraaqoodaa u kacaa u baahan dhahaa ya niyadu si kala niyada u dhahaade markaan leeyahay sida ubax malaadhay ama maydhal oo mira ku daayay barwaaqada iyo reynta la sheegay ha markaan arka laba isjecel ayaan ana sii jeclahay baa miyir waa tahay waxaan leeyahay dadku ha isjeclaadaan isjeclaadaan nolosha ha jeclaadaan nabadda ha jeclaadaan intaba dee innaguna dadka aan jeclaano sax saddex waxaa rabaa inaan ku weydiiyo ma jiraa qof aad istirinayo kan aragtidiisu waaba in dhibtaaba qofkaa waa iska nacay soomaalida waxay yidhahdeen mogtahay hebel waan karaahsaday oo aragtidiisa i dhibta cawilo qof aan necbahay iska necab tahay necbahay waa qof aanan khayrna ku hadlaynin maaragta sharna ku hadlaynin wadankana arqaladaynaya jacaylkana xumaanta u geysanaya waa kaas adigu waxaa tahay staafkii jacaylkaada ilaaliya bulshada waxaan u sheegayaa soomaaliyeed jacaylkii waxaa loo helay ilaaliye keeper of love caawa keeper of love ayaa ila fadhiya jacaylku ilaalinuu helay telefonkiisa iyo meelaha aad ka heli doontaanna waa laydin sheegi doonaa haddii ilaahay yidhahdo keeper of love dhalinta soomaaliyeed ee jacaylka ku wareertay soo dhawaada de ilaaliyihii jacaylka waa sadaham jacaylka dadka xadgudubka u geysta maxaad ku xukumi lahayd waxaan ku xukumi lahaa qofkii jacayl xad la-aan maaragtay qofkii jacaylka qardabeeya kii jacaylka qardabeeya ilaahay qardabeeya isaga waayo qof jecel oo maaragtay jacaylku waa wax lagu dhashay ma ogtahay jacaylku waa dee maaragtay waa lacagtu ka fiican yahay taa jacaylku aad baad umahadsan tahay caawa waxaan horay u maqlay dhakhtarkii jacaylka ee hargeysa laga furay caawa marka waa inaan maxkamaddii jacaylka furnaa كمان مسا علاجكي مسا علاج ما فرنا لا بضرب وفرنا علاجكي جعيلك يوم محكمة دي جعيلك محكمة دي يا دو دوران لهيد علاجكي جعيلك الشيخ مداوات كمسؤول كأه تعليمات هذا تقان نيوم العلمانة دهان علمانو الرياضة حتى دستون كوب سمايا وهكرتي أسجع دور الله علاج خير سمايا محكمة جعيلك كلا حديثة دا جعيلدن اسكو واشي يجعيلدن كلا واشي يجعيلدن وضبط واشي واسوما maxkamadda waxaan rabaa inaad gudoomiyaha maxkamadda sare ee jacaylka caawa aad cid u magacaawdo maadaama keeper of love aad tahay adigu niyahow wax walba oo xagga jacaylka aniga hay dhaafinin maxkamadda laftigeeda aniga ka soorka ah
عولو أنا قرصور كمان تلقى بلا عولو maxkamadda jacaylka أنا maadaama aad keeper of love tahay هذا أسقط حمار xeer ilaalintana cod magacaabo marka oo xukunkii oo dhan ha wada qaadanine إذا أنت هذيك عولو بتشوقي xeer ilaaliye caashiq ها ta ma mas'uuliyadda cid kala saarin مسؤولية قاوة على مسارنا ma gaaban u dhiibnaa قاوة وديبنا anigu waxaan dhihi lahaa xeer ilaalinta jacaylka gaaba aan ka daynin يا وديبنا ta nin khabiir ah waxaan alabwaan cumar baarqab عمر بارقب وديبنا ayaan waxaan damcay inaan xeer ilaaliye caashiq ka عاشق وديبت عمر بارقب أنتوا اللي عندنا عياري بالله وياي wuxuu rabaa jacaylka howl adag قف أنا كذي سنة برا بقى oo ilaaliya أنا waxaan siin lahaa qofka أنا xeer laaliye ka dhigayo qofkii hodan badbaada channel like subscribe soo raaci waa tahay xeer ilaaliyaha jacaylku wuxuu ku jiraa tartan iyo inuu ku guuleysto qofka noqon doona xeer ilaaliyaha jacaylka waa sax waa jaga banaan garsoorkii waxaa qaatay keeper of love aniga Saddam Sky aniga da xeer ilaalintii waa idinku waa xaqiina xaqiina ciddii aad u codaysaan ayaa loo coday doonaa ciddii soo dalbatay inay u sharaxan tahay iyadana waa soo dhaweey doonaa channelku waa hodan badbaada channel subscribe-ta like-ta share-ta commentigu waa xaqiina Ramadan Kareem Ramadan Mubarak Saddam Sky aan hoos u soo dhaadhac waa kula socda maxaad ka xanaaqday adigu aad leedahay naanis ama eray ama kelmad aad ka xanaaqdo dhalinyaradu ay kugu kaftanto ma jiriyaa niyo mid hodan gaabo la yiraahdo gaabo cali ma taqafarta gaabo cali waa taqaana waa mid samada laga soo gaabo cali gaabo cali waayo inaad waxay ku tahay waji galaas si waa ku sii fiirsho marka galaas aniga yaa ku sii fiirsho habeen lawad islaanteed waxay wax ku shubata la oriya islaanta aragti dheera or soo baro wada islaanteed waxay wax ku shubata la waa ku dhigay wajiga ku shubo galaas gaaba galaaska ku tilmaantay gaabo ma ugu soo dhacay ma ogtahay niyo gaabo ma ereygaasi waa dhibsaday iyaduna ka daymayso hadii la yiraahdo dadan hal kale helin gaaba iyadu waxay maagto waa maagtay soo wad ay cawilo waa tahay dhalinyaro fara badan saaxiib la tahay saaxiibtinimadu waa imisa nooc ay kala baxdaa niyo saaxiibtinimadu maxaad u taqaanaa ereyga saaxiib hor saaxiib waa xawayaan waa erey aad u weyn صح waana erey ilaahay bada ku dhaartay qofkii saaxiibkiisa xumeeya xaqiiqan uu maartay qofkaasi ma soo jiro marka saaxiibku waa ayo saaxiib waa kuma saaxiib waa sameeqa nooc ma hal waji baad u taqaanaa ma toban waji uu leeyahay saaxiibku ma noocyo badan yahay bal saaxiibkii caawa waxaan rabnaa inaad noo faallayso saaxiibka ku sheegay cabdow saaxiibku wuu waji badan yahay waxaa jira saaxiib nolosha kula qaybsanaya dhib iyo rafaad kula maraya gaajo iyo macaluul iyo xanuun kula qaybsanaya waa saaxiibka dhabta kaasi waa sax saaxiib dhalanteeda jira marka saaxiibka dhalanteedkii waxa weeye cawlow midka baqbaqlaha qawda wuxuu yiri qawda maqashi waxna ha u qabanta marka midka ka ahbaa wuxuu yahay saaxiib baranaan oo magacu taaga aad ayaad u mahadsan tahay asxaabta waxaan idin ballan qaadayaa saaxiibka sharaxaad aan ka bixi doono haddii ilaahay yiraahdo noocyada uu kala baxo iyo haddii saaxiibtinimadaadu luntay in ay noloshaadu luntay anigoo cawil ah ayaa dib barnaamij kale idinkugu qaban doono ku saabsan saaxiibtinimada caawa waxaa martay ah Saddam Sky channelku waa hodan badbaado waqtigu waa Ramadaan sax waa ciidi soo dhowdahay bandooba iska jira maxaa ku qorshaysan niyo waxa ciid mubaarak inta ilaahay caafimaad ku ciidina caafimaad ku ciidaan inta xanuunsan sana ilaahay caafimaad saraan hasi ciid ma fahanti aniga waxay qorshaysan inaan baylaad noqdo oo muqdisho gabigeedaba corona viruskii aan ka buufiyo waaba ciidaba maalinta ciidda aniga intaan baylaad noqdo inaan diyaarad baala iska samaysto dabeeto dadka aan ka buufiyo corona viruska allah inaga kor afar maalmood ka dhiman oo rabaa inuu duulaynimadii ku barto diyaaradii lagu helo kicintii lagu daawadiina lagu helo lagu buufin lahaa waa arrin la yaab leh oo noo sheegay keeper of love nin han la wey aad u mahadsan tahay Saddam Sky barnaamijkeena caawa intaasaan kusoo gabagabaynaynaa channelku waa hodan badbaado channel maxaad leedahay bulshada like share walaal subscribe walaal comment iyo share ha inagoo idin jecel arrintoodna jecel waa isku soo noqdo gaaba cali iyo channelkeedii dhammaanteen waxaan idin leenahay
wasalaamu calaykum Waalaikum. waraxmatullaahi wabarakaatu